السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين عبد غني كسو دوادا مانتا موضوع عصب مانتا وحان كهل الدونا طبان كميال اي وحاليستا بدنا الدونك كهر انتانا نقودك الموضوع هدي اي تهي بوقشادا دي كوهو ريسي جنالك فضلا سبسكرايب ليه جنالك عبد غني احمد سيدو كلنا جنبالالك فرو هدي نقودك الموضوع عينا ميشا كوباد اي وحاليستا بدنا الدونك وجزيرة الرامري اي كتالا مينمار waxay caan ku tahay yaxaasyo waaweyn oo dadka cuna dagaalkii labaad ee adduunka intuu socday askar Japanese ah oo ka soo cararay dagaal ay kula jireen ciidanka Ingiriiska ayaa waxay ka soo dhaceen jasiiradan ayagoo la kulmay cadow ka halis badan kii ay ka soo carareen waxaana halkaas ay yaxaasyada ku nool jasiiradan ku cuneen 400 oo askar Japanese ah meesha labaad ee ugu halista badan adduunka waa waadiga dhimashada ee ku yaala Mareykanka waxaa lagu tilmaamaa inay tahay meel aad u kulul oo aysan kuleelkeeda u adkeysan karin bani aadanka heerkulkeeda ayaa lagu qiyaasaa inuu yahay 57 degree centigrade halka xilliga kuleylaha ay kor u sii dhaafto intaas meeshan wuxuu qofka ku noolaan karaa 14 saacadood kaliya oo biyo la'aan ah sidoo kale waxaa ku nool baxallo badan oo halis ah oo ay ka mid yihiin masaska iyo dibqalooca iyo kuwa kale waxaa halkan ku dhintay dad fara badan waana goob xiran oo aan la gelin ama restricted area ah meesha saddexaad ee ugu halista badan adduunka waa saxaraha Danakil ee ku yaala dalka Eritrea waa saxaro ku yaala dalka Eritrea waana meel ay jawigeeda aad u adag tahay inuu qof bani aadam ah ku noolaado sidaas oo ay tahayna waxaa jira dad ku nool saxarahan oo aaminsan inuu yahay dhulkooda ma jiraan wax dhir ah oo ka bixi kara ama lagu beeri karo saxarahan duruufta jawiga oo adag awgeed waa meel hawadeeda ay aad u wasakhaysan tahay heer shimbiraha soo dulmaro hawadeeda aysan noolaan karin oo ay dhimanayaan meesha afaraad ee ugu halista badan adduunka waa buurta Washington ee Mareykanka waxaa loo yaqaanaa inay tahay buurta ugu yar uguna halista badan adduunka dhirirka buurtan wuxuu gaarayaa 6288 feet fiida sare ee buurtan waxaa la sheegay inay marto dabeesha ugu xawaaraha badan dunida laga soo bilaabo sanadii 1849kii waxaa buurtan ku geeriyooday in ka badan 137 qof waana meel qabowgeeda iyo barafkeeda uu aad u sareeyo heerkulkeeda ayaa ah -40 degree centigrade meesha shanaad ee ugu halista badan adduunka waa volkaanada Sinabonga ee ku taala Indonesia waa mid ka mid ah volkaanooyinka ugu halista badan adduunka waxaana ku taala jasiiradda Socotra ee Indonesia marka ay soo qaraxdo volkaanadan waxay dhib iyo ba' badan u geysataa dadka degan guryaha ku hareersan ayadoo soo saaraysa qaac tiro badan oo sumaysan Indonesia waxaa ku yaala in ka badan 130 volkaano taasoo daliil ama caddeyn u ah halista aadka u sarreysa ee halkan ka jirta meesha lixaad ee ugu halista badan adduunka waa jasiiradda masaska ee Brazil jasiiradan waxaa lagu tiriyaa inay tahay mid ka mid ah jasiiradaha ugu halista badan dunida sababtuna waa inay ku nool yihiin masaska ugu badan uguna halista badan adduunka dawladda Brazil ayaa mamnuuc ka dhigtay in la booqdo ama la tago jasiiradan ma jiraan wax dad ah oo ku nool jasiiradan meesha toddobaad ee ugu halista badan adduunka waa carwada xayawaanada qaranka ee Bolivia waxay ku taallaa waqooyiga Bolivia waxayna u dhowdahay xuduudaha Peru iyo Brazil carwadan xayawaanada waxaa laga helaa bahalo durjoog ah oo halis ah oo dadka cuna qaarkoodna ay yihiin kuwa sun badan leh iyo sidoo kale geedo halis ah oo sun leh waa meel markaad kor ka aragto qurux badan balse gudaheeda halis badan ay ka jirto meesha sideedaad ee ugu halista badan adduunka waa Bikini Atoll jasiiradda Marshall waa jasiirad hadda laga guuray oo ay waqtiyadii hore saynisyahanada ay ku sameyn jireen tijaabooyin halis ah oo la yaab leh waxyaabaha lagu tijaabin jiray awgeed waxay noqotay mid ka mid ah jasiiradaha ugu halista badan sidoo kale dadkii deganaa jasiiradan ayaa guryahooda iskaga cararay isbeddelka nololeed ee ka dhacay awgeed shucaacyada iyo kiimikada ay leedahay jasiiradan ayaa ah kuwa bani aadanka u keeni kara iyo dhammaan noolayaasha cudurro kansar ah
waxaana jasiiradan lagu sameeyey in ka badan 65 tijaabo oo halis ah. meesha sagaalaad ee ugu halista badan adduunka waa boqortooyada Fila ee ku taala Thailand. magaaladan waxaa ku taala meel loogu talagalay dalxiisayaasha raba inay arkaan yaxaasyo ku nool halkaas. waxaa ku taala meel buunda ah oo hoosteeda biyo ku jiraan kuna nool yihiin yaxaasyo aad u weyn. sidoo kale waxaa ku dul yaala buundada darbi silig ah, halkaas ayayna dalxiisayaasha imaanayaan kana daawanayaan yaxaasyada. qaarkoodna ay quudinayaan yaxaasyadan ayagoo u tuuraya hilib. dabcan waa arrin halisteeda leh oo haddii uu qof ku dhex dhaco meeshan uusan badbaadi karin, ileen waa meel yaxaasyo dad cun ah ay ka buuxaani. meesha 10aad ee ugu halista badan adduunka waa harada Nadruun ee ku taala Tanzania. waa haro ku taala dalka Tanzania ee dhacbariga Afrika, waana haro aad dhanaan u ah kuna jirto cusbo xad dhaaf ah, sidoo kalena leh macdan fara badan oo ka imaata dhanka volkaanooyinka. macdantaas oo gubaysa wax alla wixii soo galo haradan dhexdeeda. mowduuceena intaas ayuu ku egyahay. waa ku maasan tahay daawashadaada wanaagsan. ha ilaawin inaad like dhahdo muuqaalka, siina share garayso. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.